gudoomiyaha ugu magacaaban dawladda Soomaaliya degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado Cabdi Barre warbaahinta la hadlay ayaa ku eedeeyay ciidamada Kenya oo garab ka helaya madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe inay tacadiye ka dhana bini'aadanimada ka geysteen degmooyin ka tirsan gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya. Gudoomiyaha ayaa sheegay in madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo ciidamada dawladda Kenya ay iska kaashanayaan abaabulka duqeymo dhanka cirka ah oo loo geysanayo dadka shacabka ee gobolka Gado. Ujeedada laga leeyahayna ay tahay in la xasuuqo shacabka gobolka Gado oo dawladda Kenya ay ugu soo gambanayso xasuuqooda maamulka Jubbaland ee uu horkacay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Garbaharey ee gobolka Gado. Waxa kale oo uu sheegay in duqeymaha iyo weerarada shacabka lagu gumaadayo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada maamulka Jubbaland qaasatan kuwa ku sugan Ceelwaaq. Waxa uu ka digay gudoomiye Cabdi Barre si socoshada hawlgalada lagu dhibaataynayo rayidka ay wadaan diyaaradaha dagaalka ee wadanka Kenya. ciidamada Kenya ee ku sugan qaybo kamid ah Soomaaliya gaar ahaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa inta badan lagu eedeeyaa inay tacadiye ka dhana bini'aadanimada u geystaan shacabka ku dhaqan deegaanada dawlad goboleedka Jubbaland. Waxa inta badan ciidamada Kenya ay fuliyaan duqeymo ay sheegaan inay ku bartilmaameedsanayaan saldhigyo ay leeyihiin al-shabaab. hase yeeshee waxa duqeymahaasi aalaaba ay wax ka soo gaaraan dadka shacabka ee ku nool gobolada koonfureed ee Soomaaliya ee ay qaarkood ka hawlgalaan ciidamada difaaca wadanka Kenya ee loo soo gaabiyo KDF ayaa fulisay maalmihii ugu dambeeyay hawlgallo dhinaca cirka ah oo loo adeegsaday diyaaradaha dagaalka ee ciidanka Kenya ee qaybta ka ah hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. ciidamada Kenya ayaa duqeymo ka geystay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Gado oo dawladda Soomaaliya ay kala wareegtay maamulka Jubbaland degmooyinkiisa inta badan marka laga reebo Ceelwaaq oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka amar qaata maamul goboleedka Jubbaland ee uu horkacay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. gudoomiyaha Garbaharey Cabdi Barre waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe in uusan u turayn shacabka reer Jubbaland oo uu xasuuqayo isaga oo garab ka helaya dawladda Kenya ayuu sheegay in ay muddo kursi ku haysay Axmed Madoobe iyadoo oo awood ku maquulinaysa cid kasta oo liddi ku ah maamulka Axmed Madoobe. hase yeeshee waxa uu gudoomiyaha Garbaharey ugu baaqay shacbiga gobolka Gado inay u diyaar garoobaan sidii ay isaga difaaci lahaayeen ciidamada Kenya ee duqeymaha joogtada ah ka fulinaya degmooyinka gobolka Gado. hadalka maamulka degmada Garbaharey ugu magacaaban dawladda Soomaaliya waxa uu imaanayaa maalmo kadib markii militariga Soomaaliya ee ku sugan Balad Xaawo ay ku goodiyeen in jawaab adag ay siin doonaan ciidanka difaaca wadanka Kenya oo dad rayida ku xasuuqay gudaha Soomaaliya. ciidamada Kenya ayaa duqeymaha ay fuliyeen waxa ay sheegeen in lala beegsaday xarumo ay al-shabaab lahaayeen. hase yeeshee cadeymo la soo bandhigay ayaa muujiyay in dhammaan hawlgalladaasi lagu beegsaday dad rayida oo aan waxba galabsan. Kenya ayaysan ahayn markii ugu horeysay ee ay rayid ku xasuuqdo deegaanada Jubbaland. hase yeeshee dhowr jeer oo hore tan iyo markii ciidanka Kenya ay soo galeen Soomaaliya ayay hawlgallo noocaan ah fulinayeen iyaga oo markasta hawlgallada ay fuliyaan ay dhibaato ka soo gaarto dadka shacabka ah oo ay duqeeyaan diyaaradaha dagaalka ee laga leeyahay